kulan wacan daawadayaal halkan waa Somali Life Media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aanan kugu haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay weerarka hotel Xayaat ee magaalada Muqdisho iyo ciidamada dawladda oo ku jira gabagabadii ugu dambeysay howlgalkooda sheegayna in ay goordhow soo aftari doonaan kooxaha ku jira gudaha hotelka Xayaat iyo ciidamo uu hogaaminayo taliye Farxaan Qaroole oo gudaha u galay hotelka halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka hadlaya weerarka lagu qaaday hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho xog xasaasi ah banaanka keenay halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wajahaya dhaleecayn xooggan saacado kadib markii la weeraray qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho iyo mucaaradka cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamaya in haatan Soomaaliya ay wajahayso halis amni isla markaana uu ka gaabiyay wax ka qabashada dhibaatooyinka ammaanka halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay fadlan daawada muuqaalkan haduu ku soo gaaro si share garay si aan u helno saaxiibadiinka oo kale waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo la jaanqaadkiina haddii aynu ku bilowno ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu si kulul kaga hadlay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen qaar ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarka al-shabaab xalay ay ku qaadeen hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay haatan shacabka Soomaaliyeed inuu kaga tacsiyeenayo dhibaatooyinka loo geystay isla markaana waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa ay ka gaabiyeen arrimaha la xiriira sugitaanka amniga Maxamed Xuseen Roble ayaa kaga tacsiyay shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ka soo gaartay qaraxaasi isla markaana waxa uu sheegay haatan in wax laga xumaado ay tahay in ciidamada dawladda ay ku guuldareysteen ilaa iyo haatan soo afjarida weerarkaasi isla markaana Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay haatan inay u baahan tahay Soomaaliya isku tashi dhanka amniga isla markaana dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ku dhaliilay inay haatan muujinayso habacsanaan dhanka amniga isla markaana tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la doortay waxa soo batay weerarada iyo qaraxyada tooska al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha magaalada Muqdisho weerarka xalay lagu qaaday hotelka Xayaat ayaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu yahay weerarkii ugu halista badnaa tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15 May doorashadii uu kaga guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay haatan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga baahan yahay inuu la yimaado qorshe cad oo la xiriira wax ka qabashada dhibaatooyinka halista amni ee shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan kuwaas oo al-shabaab ay geysanayaan isla markaana haatan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in saraakiishu ay la yimaadaan qorshe lagu soo afjarayo weerarkan haatan wixii ka dambeeyana laga qaato tusaale cad oo la xiriira dhibaatooyinka ay la maagan yihiin magaalada Muqdisho al-shabaab ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay jiraan siyaasiyiin mucaarada kuwaasi oo qorsheynaya in ay sameeyaan wax walba oo lagu cambaaray kala dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana lagu muujinayo dhaliilaha la xiriira arrintan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisu haatan ay ka digtoonaadaan dhibaatooyin walba oo kaga imaan kara dhanka mucaaradka isla markaana waxa uu sheegay in arrimahani ay yihiin arrimo siyaasi isla markaana siyaasiyiin dana gaar ah wata ay ku lug leeyihiin sidoo kale waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in dad ka kooban tiro yar isla markaana ciidamada dawladda oo muddo ka badan 19 saacadood howlgalo toos ah wada ay ku soo afjeeri laayihiin weerarkaasi isla markaana haatan ay tahay in laga tashado aayaha Soomaalinimada waxna laga qabto ammaanka dalka ciidamada ammaanka ayuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan si mar walba ay u helaan xasilooni iyo nabad isla markaana laga wada shaqeeyo nabadda dalka asagoo sheegay in haatan madaxda talada wadankaasi looga baahan yahay in ay la yimaadaan qorshe cad oo ay ku hogaaminayaan dalkan markaana ciidamo uu hogaaminayo taliye Farxaan Qaroole ayaa haatan la sheegayaa in ay gudaha u galeen hotelka Xayaat isla markaana ay qorsheynayaan in ay sameeyaan howlgalkii ugu dambeeyay oo lagu soo afjarayo xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku sugan gudaha hotelka waxaana ciidamada Farxaan Qaroole la sheegay in lagu bedelay ciidamo hore u joogay halkaas kuwaas oo ku guuldareysay soo afjarida weerarka al-shabaab ay ku qaadeen gudaha hotelka isla markaana taliye Farxaan Qaroole iyo ciidamadiisa ayaa haatan wada qorshe cusub ay ku doonayaan in ay ku soo afjaraan al-shabaabka ka dagaalamaya gudaha hotelka waxaana burbur xoogan uu soo gaaray guud ahaan hotelka Xayaat isla markaana saacado badan ay ka dhex dagaalamayaan
xubnihii weerarka ku qaaday weerarkan ayaana waxaa ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dad shacab oo halkaas ku sugnaa. taliye Farxaan Qaroole iyo ciidamadiisa ayaana laga dhursugayaa natiijada ay ka keenaan howlgalkooda, waxaana sawirro goobta laga soo qaaday ay muujinayaan taliyaha iyo ciidamada uu hogaaminayo oo gudaha u galay hoteelka, isla markaana kooxaha ka dhex dagaalamaya hoteelka ayaa haatan u muuqda in ay u taaglayihiin iska difaacida ciidamada dowladda. howlgallada ay sameynayaan isla markaana saacado ka hor warar soo baxay ayaa sheegaya in xubno ka tirsan kooxda meesha ka dagaalamaysa ay isa soo dhiibeen, balse arrintaas ayaa waxba kama jiraan noqotay, waxaana xubnaha ka tirsan al-shabaab oo waraysi laga qaaday ay sheegeen inay gudaha hoteelka ka dhex dagaalamayaan, isla markaana ay dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale, waxaana marba marka ka dambeysa ka sii daraya xaaladda goobta shaqaaqadu ay ka jirto haatan, waxaana ciidamada dowladda haatan ay qaadayaan howlgalkoodii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo weerarkan. taliye Farxaan Qaroole ayaana wacad ku maray in uu soo aftari doono xubnahan hoteelka gudihiisa muddo ka badan 19 saacadood ka dhex dagaalamaya, waxa uuna haatan wataa ciidamo aad u qalabeysan oo ka tirsan kuwa haramcad, kuwaasi oo qorsheynaya inay soo afjaraan guud ahaan weerarka ka socda hoteelka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu si la yaab leh kaga hadlay weerarka xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladda haatan jirta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud habacsanaan dhanka ammaanka ah laga dareemayo. Farmaajo ayaana waxa uu u diray tacsi dhammaan dadkii ku geeriyooday, asagoo caafimaad u rajeeyay dadkii ku dhaawacmaya weerarka ka dhacay hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho oo ilaa haatan la soo sheegayo inay weli ka dhex dagaalamayaan kooxihii weerarka ku qaaday oo ka tirsan al-shabaab. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisii uu qorshe weyn kaga degsanaa sugidda ammaanka dalka, isla markaana ay dhibaatooyin badan ka hortagi jireen, balse haatan waxa uu sheegay madaxda talada wadanka haysa in ay kaga mashquulaan arrimo siyaasi ah iyo sidii siyaasiyiin ayaga ka aragti duwan ay weeraro ugu qaadi lahaayeen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ayagu isku tashadaan, isla markaana cidna aysan u maqnayn amnigoodana ay ka shaqeeyaan ammaanka magaalada Muqdisho. ayuu sheegay in aan looga shaqeyn karin in haatan siyaasiyiinta oo isbursanaya ay ku mashquulsan yihiin arrimo siyaasi ah, isla markaana uu sheegaya in haatan ciidamadii dowladda ee loogu talagalay isla markaana dowladdiisu ay u diyaarisay inay ka shaqeeyaan sugidda ammaanka dalka haatan lagu mashquuliyay arrimo siyaasadeed, isla markaana waxa uu sheegay gabi ahaanba haatan xarumaha dowladda ee ciidamada inaysan u shaqeynin sidii loogu talagalay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maanta afka furtay ayaa sidoo kale sheegay in weerarada ka dhacay magaalada Muqdisho ee qaraxyada u badan ay soo maleegeen siyaasiyiin uu sheegay in filla Soomaaliya la shaqeynayaan, isla markaana waxa uu sheegay in dana gaar ah laga leeyahay. waxa uu sheegay sidoo kale haddii baaritaan si dhab ah lagu sameeyo arrintaasi in ay caddayn yeelan doonto, isla markaana madax waaweyn oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay saldhiga doonto, isla markaana ay ku ceeboobi doonaan. balse waxa uu sheegay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ilaa iyo haatan aan si rasmi ah kaga hadlin shacabka ay mas'uulka ka tahay ee lagu gumaadayo magaalada Muqdisho, isla markaana hoteelada lagu weeraray weerarkii ugu halista badnaana tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15 May uu ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo ilaa iyo haatan kooxihii weerarka ka geystay ay ku dhex dagaalamayaan. Farmaajo waxa uu sheegay haatan in arrintaasi laga fasirin karo habacsanaanta dhanka amniga dowladda ka dhex jira, isla markaana waxa uu sheegay ciidamadu haatan inaysan howlgalkaasi u filin sidii loogu talagalay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana haatan waxa uu baaq weyn u diraya ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, asagoo ka dalbaday in arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto, waxaana wax laga xumaada ku tilmaamay in madaxda qaranka haatan indhaha ay ka daalacanayaan waxa ka socda magaalada Muqdisho, isla markaana indhaha aan laga fureysan karin dhibaatooyinka jira. guud ahaan daawada wararka aad kala socotaan Somali Life Media waa naga intaas. fadlan daawada muuqaalkan hadduu soo gaara sii share gare si aan u helan saaxiibo idinka oo kale waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo la jaanqaadkiina mahadsanidin.